markiinu ka hadlayno imtixaanada nolosha iyo sidii aynu uga guuleysan lahayn imtixaanada noloshu way carqalado badan tahay, way dhibaato badan tahay, balse waad ka gudbi kartaa dhibaatooyinkaas. Waxaad uga gudbi kartaa adkeysi, samir iyo dulqaad. Hana ilaawin inaad Alla tala saarataa, dhibaato walbo ku soo wajahdana aad Alla ka magan gashaa, Allana aad ka baridaa inuu kaa badbaadiyo. Maahan inaad madaxa qabsato, maahan inaad fikirto, maahan inaad boodboodood oydo, balse waa inaad Alla tala saarataa, kadibna aad ka fikirtaa xalka dhibaatadaas iyo sidii aad uga guuleysan lahayd. Waa inaad ku noolaataa nolol istireexa noloshaada, si walba ay u dhibaato badan tahay, si walba ay u xun tahay, ha isniyad jibin, ha ooyin, ha isku samayn waxyaabo qaldan, balse wax kasta Alla ayaa kaa saarayo. Adigana waxaa lagaaga baahan yahay inaad dadaasho, isku dayda inaad ka gudbi kartid. Waa inaad plan dejisataa ood buugga leenka hore ku qortaa sideen ooga bixi karaa hadafkan, sideen ooga bixi karaa dhibaatadan, sideen ku horumari karaa, sideen ku noqon karaa dayaxii berito, sideen ooga fogaan karaa fikirka walwalka iyo walbahaarka, sideese u guuleysan karaa. Adiga ayaa lagaaga baahan yahay inaad ka fikirtid, maahan inaad isdhiibto, maahan inaad is ilaawdo, maahan inaad isdayacdo, maahan inaad tiraahdo ma awoodi, maahan inaad cagaha saaratood fadhiisato, maahan inaad ka baqdo guuldarada, sababtoo ah guuldaradu waa barbilowga guushaada. Qof aanan guuldareysaninna ma guuleysto. Nolosha waa buundo loo marayo guusha, ama waad ku dhici ama waad ka gudbi. Haddii aad shalay dhacday buundadii aad ka dhacday, ogow inay jirto berito meeshii shalay xagta kuugu baxday inaadan ku soo laabanayn, balse aad ka gudbi doonto. Waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowga. Fadlan subscribe saar, gambaleelka riix, like-ta ha ka ilaawin. Mahadsanidin meel walba joogtaan. Guul ayaan idin rajeynayaa.